2020 waxa uu si dhammaystiran inoogu wada ahaa sanad aan la ammaanin oo aan wanaagsanayn. Waxa uu ku bilowday dabkii xoogganaa ee geerida badan sababay ee ka kacay qaaradda Australia. Waxa uuna ku dhammaaday 2 milyan oo geeri ah taa oo sababtay caabuqa coronavirus. Laakiin 2020 weli ma aha sanadkii ugu xumaa ee taariikhda. Sanadkii ugu xumaa ee taariikhda aadanuhu ma ahan 1349 marka dhimashadii madoobeed ay tirtirtay Yurub barkeed. Mana ahayn 1918 marka ay 50 milyan ilaa 100 milyan oo qof oo u badnaa dhalinyaro ay u dhinteen hargab. Balse 536 taariikhdu waxa ay ahayd bilowgii mid ka mid ah xilliyadihii ugu xumaa in la noolaado haddaanay ahayn sanadkii ugu xumaa abid. Sanadii 536 waxa ay dunida u aqoonsatay inuu ahaa sanadkii ugu xumaa ee taariikhda. Haddaba maxaa dhacay sanadkaas? Inta lagu jiray sanadka 536 volkaano aad u weyn ayaa ka dillaacday jasiirad. Dillaaca ayaa hawada ku tuuray malaayiin tan oo dambas ah. Dambasku si dhaqsi leh ayuu ugu faafay adduunka. Ciryaamo la yaab leh ayaa Yurub, Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Aasiya isu dabooshay, waxayna sababtay mugdi habeen iyo maalin ah muddo 18 bilood. Qoraxdu waxa ay soo baxaysay iftiinkeeda iyada oo aanay dhalaalin sida dayaxa oo kalena u muuqata. Qorax la'aanta awgeed dalagyadii ay dadku beeranayeen si ay ugu noolaadaan ayaa bixi waayay. Heerkulka xagaaga waxa uu hoos u dhacay 1.5 degree centigrade ilaa 2.5 degree centigrade. Isla sanadkaas daacuunka bubonic ayaa sidoo kale bilaabmay taa oo horseeda qiyaastii 25 ilaa 50 milyan oo qofood in ay dhintaan. 536 waxa uu ahaa sanad ka xun sanadka inoo xun ee 2020.